waa 16 bisha toddobaad July sanada 2022 waxaan nahay Abuukar Cali Cadaawe kusoo dhawaada qodobada ugu door karoon wararka dunida ee warbaahintan City. Jubbaland oo ku dhawaaqday xilliga ay dhacayso doorashooyinka aqalka sare. afar ruux oo ku dhimatay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. shacabka magaaladan Jowhar oo ka falceliyay su'aasha ah haddii madaxweyne dalka ay ka noqoto qof dumar ah saygeeda maxaa loogu yeeraa. ku dhawaad 7 dhalinyaro oo ka qayb galay tartan gabay oo ka furmay magaalada Buuhoodle. iyo dalka Lubnaan oo qarka u saaran burbur iyo dawlad la'aan. qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal wararka dunida oo wararka ciyaaraha ay ka mid yihiin ee u diyaar garooba iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. markale habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaawno sida hordhaca wararka dunida ee warbaahintan City aad ku daawaneyseenba. guddiga doorashooyinka gaar ahaan kuwa maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi Jubbaland waxa ay ku shaaciyeen in 25 bishan aynu ku guda jirno ee July ay markaasi qaban doonaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. gudoomiyaha guddigaasi ayaa warbaahinta u sharaxay war-saxaafadeed ay soo saareen. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed siyad Jubbaland oo fulinaya heshiisyadii 17 Sebtembar 1 Oktoobar 2020 oo ay la socoto heshiiskii kale ee asagana ahaa 27 May iyo 29 Juun 2021 ee ay madaxda qaranku kaga gaareen madashii wada tashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka ee 2021 heshiisyadaasi oo qeexayay jadwalka mudaysan ee qabashada doorashooyinka xildhibaanada labada aqal. guddigu wuxuu ku wargelinayaa madaxda qaranka ee labada heer iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed arrimahan hoos ku xusan. 1 in guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee Jubbaland uu diyaar u yahay qabashada doorashada xildhibaanada aqalka sare muddadii loo qorsheeyay ee ahayd 25 July 2021. qodobka labaad guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed wuxuu guddoonka baarlamaanka Jubbaland ka codsanayaa inay magacaabaan guddi doorasho oo heer baarlamaan ah oo guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland kala shaqayn doona qabashada doorashada xubnaha aqalka sare haddii alla idmo. 3 dhammaan musharaxiinta doonaya in ay u tartamaan kuraasta aqalka sare in ay isku diyaariyaan doorashada. 4 guddigu wuxuu ka codsanayaa dowladda Jubbaland inay u diyaar garowdo una diyaariso sugidda amniga doorashooyinkan qabsoomi doona insha Allah. 5 guddigu wuxuu sida ugu dhaqsaha badan u soo saari doonaa jadwalka fulinta doorashada aqalka sare oo faahfaahsan. waa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo warbaahinta u sharaxayay war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen. markan haddii aynu eegno saaxiibayaal shil sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay degmada Dacar Buruq oo ah markaasi degmo u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaana ku dhintay dad gaaraya ilaa iyo 4 ruux oo markaasi 3 kamid ay yihiin haween halka qofka kalena uu yahay rag. waxaa warbaahinta la hadlay mid kamid ah ehelka dadkaasi geeriyooday. qof walba oo dhimanay qof walba maalintiisa dhaaf maayo maalintuu Ilaahay ugu talagalay uu dhimanay saddex ogtiin boorta maanta shilka dhacay waalidiinta horta laba kamid ah family baan ahayn aduu qadarkii Ilaahay baa ayado lama celin karo wax u socdeen inay soo eegaan dhalinyaro ka xidhnaa aduu madheero lagu xukumay oo ilaa sanad iyo badh sanad xidhan qadarta Rabbina horta way jirtaayo wallahi
dee waxaan leeyahay intii dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana dee allah u boogdhay baan leeyahay dadkii iyo ehelkiina waxaan leeyahay simriye iman allah inaga wada sii dhammaanteen. waa mid ka mid ah ehelka dad ku geeriyooday shil ka dhacay inta u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. markaan Hirshabelle dib ugu soo laabaneynaa saaxiibayaal gaar ahaan magaaladan Jowhar. dhawaan dalka waxaa lagu wadaa inay ka dhacdo doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaana qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladan Jowhar aynu weydiinay haddii dalka ay madaxweyne ka noqoto qof dumar ah maxaa loogu yeeraa ninka qaba dumarkaasi ee markaasaygeeda ah. waa kuwan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladan Jowhar oo aragtidooda ka dhiibanaya. koleta waa ninkeeda la dhahayo moogi lama dhahayo marwadeeda lama dhahayo laakiin waa ninkeedii madaxweynaha oo dumarka ama madaxweynaha hadda dalka naag u noqoto waxaa la dhahaa inuu nin oo u yahay baa la aqoonsanaa. ninkeeda waxaa la dhahaa marwada madaxweynaheedu waano ama marwada oo madaxweynaha noo saygeedu waxaa la leeyahay. mana rajeynayaba inay waddanka Soomaaliya naag madaxweyne ka noqon doonto taas ma rajeynayaba. raggaaba ka badanba oo jagada madaxweynimada raggaaba isku dagaalayo ragga mar walba ku tartamaya marka naag boos uma hayno. ninka waxaa la leeyahay mudana koowaad ninka naag madaxweyne ma ninkan waxaas noqonaa marka mudanaas noqonaa. waa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaaladan Jowhar oo aragtidooda ka diiwanayay haddii dalka ay madaxweyne ka noqoto qof dumar ah maxaa loogu yeeraa saygeeda. markan haddii aynu eegno saaxiibayaal 3 dhalinyaro oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka qayb galeen tartan gabay oo laga daafuray Buuhoodle. waxaana dhalinyaradani markaasi laga kala keenay deegaanada gobolka Cayn. mid ka mid ah dadka soo qaban qaabiyay ayaa markaasi ka hadlay muhiimadda uu leeyahay bandhigan. inaan soo saarno dhalinyaro gabi karto oo waa la kala baxayaa saad la socotaan oo 3 qof baa soo baxaya haddii Ilaahay marka 3da qof inaan ogaano oo dabagalno oo hibadooda aanu kor u qaadno ayaan diyaar u nahay. ujeedka labaad ee nagu dhaliyay waxa weeye waa in aan soo saarno dhalinyaro gabi karta. ujeedka saddexaad waxa weeye waa inaan ilaalino afka iyo dhaqanka. waa mid ka mid ah dadkii soo qaban qaabiyay tartankan oo ka hadlay muhiimadda uu leeyahay. markan haddii aynu eegno saaxiibayaal gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa shacabka ku dhaqan halkaasi iyo sidoo kale gudoomiyaasha xaafadaha magaalada waxa uu ugu baaqay in ay markaasi ka shaqeeyaan sugidda amniga degmada oo ay howlgalo ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa amniga maamulkaasi. waxaan filayaa xaruntan 8 bilood dhowr beri aan joogno markii labaad aan soo galo aan imaado mas'uuliyadda aan kaga maqnay waxay ahayd gudoomiye Mustafa nagu matalay. maantana waxaan rabnaa bedel iyo asxaabtiisa inay nagu matalaan xildhibaanada iyo madaxda kale ee dowladda hoosana iyo agaasimayaashuna ay shaqada wadaan kor ka wadaan laakiin xaafadii iyo xisaabtankeedii iyo fikradihii iyo hawshii ka dhex socon lahayd oo ugu horeeya xaqiijinta amniga waxaan u idmanaynaa insha Allah tacaala gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha iyo bulshada oo la shaqeynaysa gudoomiye laabadyada iyo falarada. waxaan ilaahay ka rajaynayaa waa la soo dhameystiri doonaa dhammaan inta ka dhiman maamulka insha Allah. waa gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo gudoomiyaasha xaafadaha magaalada iyo shacabka halkaasi ku dhaqan ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sugidda amniga maamulkaasi. markan akhbaaraadka caalamka aynu eegaynaa saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyay ee wararka dunida ee warbaahinta nisideen ka soo gaarnay. ra'iisul wasaarihii Lubnaan Saad Hariri ayaa isagu xilkaasi iska casilay kadib markii uu sheegay in uu ku fashilmay dadaaladii uu markaasi ku soo dhisi lahaa xukuumad lagu wada qanacsan yahay oo badbaadisa dalkaasi. isla akhbaaraadka caalamka aynu ku guda jirnaa 4 qof ayay markaasi ciidamada ammaanka ee Britain ay xabsiga u taxaabday kadib markii qaar ka mid ah ciyaartooyada xulka qaranka ee kubadda cagta England loola dhaqmay si cunsurinimo ay markaasi ku jirto fariimo takoor ahna loo marsiiyay baraha bulshada. Marcus Rashford iyo sidoo kale Bukayo Saka iyo Jordan Majo oo dhammaantoodba markaasi ka wada tirsan ciyaartooyda England ayaa
markaasi loola dhaqmay si cunsurinimo oo ku jirto taasi oo ah midabkooda oo madow ah. guud ahaan waa intaas saaxiibayaal wararkii dunida aad kala socoteen warbaahintan City waxaa halkan idinkala socodsiinayay anigoo Abuukar Cali Cadaawe ah. dhanka kaamirada waxaa ka qaabeynayay Yuusuf Abubakar Ibrahim halka farsamada uu ka qaabeynayay Cumar Guux. intaynu dib ugu kulmi doono wararka dunida ee warbaahintan City kiisa xigana waa anigoo Abuukar Cali Cadaawe oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo isma dhaafno.